السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سنوات wanaagsan aad iyo aad baan idin salaamaya meelba dunida kala joogtaan iyo waqtiga idin tahayba. waxaan sameynaynaa barashada Patent-B-ga argumentaha 21aad qaybtiisa koowaad qaybta faahfaahinta. sida ogtiinba markastaba argumenta markaan soo dhameynaa argumentaha ku xigay inta aanan bilaabin waxaan sameynaa qaybtiisa faahfaahinta si aan u ogaano wuxuu ka hadlayaa argumentaas insha Allah. Okay, argumentan wuxuu ka hadlayaa incidenti stradale e comportamenti prevenire incidenti, yani incidenti stradale shilalka ka dhaca wadooyinka iyo comportamenti habdhaqanka la iska rabo sidii looga hortagi lahaa. conoscenza si loo barto dei rischi khatarta della circolazione wadada isu socodka gawaarida gaadiidleyda e comportamenti iyo dhaqanka prevenire la iska rabo sidii looga hortagi lahaa incidenti shilka. Okay, wuxuu yiri rispettare in lagu dhaqmo le regole qawaaniinta sare in la ahaado prudenti ku foojignaan badan leh importantissimo aad bay muhiim u tahay ma laakiin u dhahay ancora sufficiente weli waxaa macnaha ancora sufficiente weli waa inagu filan tahay yiri se vogliamo haddii aan rabno diventare inaan isku bedelno bravi guidatori kuwa macnaha gawaarida wadaya oo ku wanaagsana dobbiamo waxaa loo baahan yahay yiri imparare inaan barano a prevenire inaan ka hortagi karno il pericolo khatarta conoscendolo anagoo baranayno innanzitutto habba ugu horeyse e poi imparando iyo kadib inaan barano muxuu yiri percepirlo anche laddove non si vede, ad esempio perché non ha nascosto wuxuu yiri waxaan qarinaya della struttura del veicolo, yani gaari markaa wado kale gaariga birta meesha ay ku aadantahay oo kale marka qarinaya waxa ka arkaysaa macquul ah. il pericolo khatarta soona waxa waay majori kuwa badankooda ka dhacaya incidenti shil ahaan dee veicolo gawaarida duwe hotel laba taayirada moodalida oo kale maadaama ayaga hoosta ka soo galayaan. Okay, wuxuu yiri riski derivanti khatarta ka dhalanaysa della presenza di vari tipi di veicolo gawaarida kala duwan. il conducente darawalka di un'autovettura oo gaariga wato deve conoscere waa inuu bartaa riski khatarta ka sulla strada wadada soona legati kuwaasoo la xidhiidha alla presenza di veicolo gawaarida lenti tartiibka u socdo come ciclomotoriyaasha macchine agricolaha gawaarida beeraleyda soprattutto habka ugu darnaatee uu yiri soo strada extraurbane wadooyinka magaalada ka baxsan in difficoltosa caqabado badan lagala kulmi karaa la valutazione inaan qiimeyno dei tempi di avvicinamento. Okay, velocipedi maxaa la yiraahdaa bahalada baaskiilada camal afarta lugood leh bicicletta sidoo kale ayaga la waaye mezzi dotati di massa modesta leggeri caratterizzati da basse velocità, yani gawaarida waxyaabaha le speedkooda ku aad ku gaaban. oscillizzazione trasversali spesso utilizzati da conducenti giovanissimi e veicoli a motore presente nel traffico o rendersi conto della situazione di pericolo. Okay, inshallah binal karim cashar kastoo aan sameynayno qaybtiisa faahfaahinta markaan ka hadalno waxaan said ugu fasiri doonaa ama si aan caadi ahayn qaybta maxaa la yiraahdaa quiz maadaama diiradda aan saareen. cautela deganaan adottare la qabsi nei confronti sida looga hortagi lahaa dei veicoli aduweerate labada taayir ku leh mootoleyda camal laga hadlayaa. guida di un fuoristrada SUV il conducente darawalka di fuoristrada SUV deve ricordare waa inuu xasuusanaada che la guida di tale veicolo all'interno dei centri abitati è particolarmente impegnativa, yani qofka markuu gaariga ku dhex wado magaalada dhexdeeda waa hawl adag u haya sama tusaale inuu dadka iska fiiriyo dad goynaa inuu samaafarka iska fiiriyo inuu baaskiilka iska fiiriyo inuu waxyaabo badan inuu iska fiiriyo sama campo di visibilità
aragtida noo saamaxaysa anigoo gaarigeena saaran. Anche se si trova alla guida, xataa haddii macnaha aan wadno di veicolo dotato per caratteristiche costruttive di un ottimo campo, يعني gaariga haddii macnaha uu noo saamaxaya xataa inaan meel fog aan wax ka arki karno, visibile il conducente darawalka deve evitare markasta waa inuu ka fogaadaa di ridurlo inuu yareeyo applicando pellicoli adesivi, yani dadka qaar muraayadaha waxay ku dhejiyaan sharooti iyo waxyaabo sharaxaad waxaasoo dhan lama ogolo. Okay, cautela che devono adottare i conducenti dei veicoli a due rotte, labada taayirlada yani laga rabo inay ku dhaqmaan hadiga foojignaanta, degnaanta, taxadirka, waxaasoo dhan hadii la isku dardariyo. Pericolo khatarta per i veicoli gawaarida due rotte, laba taayirada mootooyinka laga hadlayaa. يعني markastaba waxyaabaha shilka keena ugu daran waxaa waaye mootoleyda iyo kuwa baaskiileyda. waa aragteen aan walaynaa qofka magaalada banaankeeda ka shaqeynaa baaskiil electric iska soo iibsanaa, wado wuxuu ku dhacaa oo extra urban principal oo maxaa la yiraahdaa bistashi kilaabile lahayn, wadooyinka baaskiilka lahayn uu iska galaa. marka gawaaridii qataraha ka dhalanayso haddii uu gaarigan uu dhaho mootada baaskiilkan abasa gaariga kale ka hor imaanay isku dhici karaan, haddii uu hoosta kasoo galana baaskiilku ku dhici karaa. marka waxyaabo noocaas markastaba faahfaahin badan ay ka bixiyaan oo sida macnaha looga hortagi lahaa ama loo foojignaan lahaa insha Allah. Okay, insha Allah billahi karim qaybta kuiska ayaa waxaan ugu fasiri doonaa si aan caadi ahayn. waa argumentico 20aad runtii masha Allah meel fiican uu noo marayaa. 25 argument insha Allah haddii nafta nagu jirto aan wada dhameyn doonaa. haddii aad wada maasantiin insha Allah waxaan u balanaa casharka koowaad ee qaybta kuiska guuleysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.